بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وحين ما تكهضينا قيبة كمذا dhibaatooyinka ay shirkadda Sunpower ku hayso shacabka magaalada Hargeysa iyo shaqaalaheeda halkan sida aad arkaysaan waraaqaha aan hayo waa xukun maxkamadeed oo ka soo baxay maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland taariikhdu markay ahayd 23 Oktoobar 2019 dabayaaqadii sanadkii 2016 ayaa shirkadda Sunpower waxay boqol shaqaalaheeda ah ku tiri naga saamaxa kala badh حقي أن نقول هيدين طبعا تنين كمية هاديدي ويلي تبال هاي ما تو كيجا باهن أنا جابك سامعيه كيجا باهن كنا صلاة إيش ساملي ده هاي ما تو نينكي وحلاق على العلادين كار يسقوا تكنيشن فرسمي قانا أوضبك كل حيلر أيها اللي ضروا البارق هذي وحول ملهي ليس أنا قاعد كوك حيل هل معلم بالليسن كيلو وصل صار ليه ميلاد ayaa laga bedelay 2 bilood gudahood kadibna waxa lagu heeyay in uu waayir ay shirkadu leedahay qaatay isaguna dukaankii uu ka soo iibiyay iyo dukaankii kale uu geeyay ayuu voucher soo bandhigay 2 bilood ayaa la meermeeriyo mushaarkiisii aan la siinin sida xaqan ku cad kadibna waxa uu dacwad ka furtay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada qoyska ee Soomaaliland wasaaraddu waxay ku xukuntay إن Sunpower أي بحسه حقي ولها ودي محكمة قبل كي يرفعون الغلط محكمة دي قبل شغلتك الدوكيومنتين بقى لقوا لها صحيحة وح قال كم الدوكيومنتين دي إنك لقوا صغيرة لقى صحيحة إن حقي سوقاتي وحنوك شقيني مدة 3 سنة وحول حق هالكواد يقول شبتين ميت ذهب بعد يقول شبتين مساد بعد يقول شبتين مكاش بعد يقول سيسان بالعداية وحول ما عديني وحينكي رفعان وقاتي محكمة السرية ee Soomaaliland sida ku cad warqadda ugu dambaysa ee xaqana sida ku cad warqadda ugu dambaysa ee xaq waxa loo xukumay xaq ah 3 sano xuquuqdii shaqaale ee uu lahaa iyo 2 bilood oo aanay mushaharkeeda siinin Sunpower waa shirkadda noocaas ee kootada doonaysa in loogu xidho korontada Hargeysa wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland جامع محمود علي وحوها قدوميه Sunpower أرتيه وقدبين شري الفيديو ذا يكون هاي نمركي وها قدوميه كحين Sunpower وحكم لها إن المجال لبا لايد أو لبا دينا عوكها صعود وضين مين سواها اللي نعوها صعود Sunpower كلها شغال إسرائيل تيبو أميسيه أو كوشة مانت إسرائيل أو كهذي خلاف سوكر نحكي على Sunpower ين لبيرتنا وحكوليه لبا لايد أو لبا دينا عوكها صعود ولانو مغادا markaan oga shirkadaha isgaarsiinta saarahan laba shirkadood baa jiray oo labaduba ay qaybaha magaalada gaarsiiyaan isgaarsiin waxa ay STC iyo Telesom la labada had ee la midun bay raaci jirtay haysan jirtay waa telefoonada ka hadlaya STC dana midun bay raaci jirtay wax iska hor imanayay ama iska daba imanayay ama sabab la yiraahdo cid gaar ah loogu xidhan halkaas haba yaraatee may jirin Sunpower waa shirkadda koonaysa saacadda noocaas soo xidho waa shirkadda koonaysa saacadda noocaas soo qaaday waa shirkadda koonaysa qiimaha ugu yaraan qaadi karna ilaa waan soo shaqo tagnay waa $10 wixii $10 ka yar leedka iska jiraan way micneedu oo faynuus tahay isticmaalaan walaal haddii aan u baahnayn aan $10 isticmaalo miyaan shan bixin karin miyaan saacaddaas waxay soo qortoon aan xaq igu lahayn waa maxay minimum cost kan aad u gaadajisay waxaan anigu indhahayga ku arkay shaqaale kamid ah shirkadaha kale ee korontada oo la xirxidayay loona diiday inay nalka ama korontada gaarsiiyaan qaybaha kale ee magaalada marka waxa gaadhiga ku waday mas'uul Sunpower ah oo isgarayno askarigii la soo qaaday baan ku wariyahay ninkan skate laydkiisa uu xiranayaa adigu waxa la wax ku sameyn kartaa ma jirto dabeetana wuxuu ku yiri waan ku xidhi waxaan ku anigu mid adigu xidhi kartid iyo mid taliyaha saldhigga haysta oo xidhi karo midna ma yihiin baan ku yiri wallahi haddii aad ninka taabatina dagaal baan ku xigeen anu markaa shirkadda kale ee saamina kuma lihi ganacsadana ma yihi faa'iido doona ma yihi wax laga yaabaa inaan professionally macallin hayo ganacsada iyo saamil midna aanan ahayn laakiin waxa weeye xaq dadka inaan laga aamusin ama dulmiga aan la ogolaan ayuun baan sidaas ugu lahaa
waxaanu diraynaa qayladhaan ku aadan some power inay dar yeesho dadka leedkoodu ay dhibaatada gaadhsiiyeen kow waxaanu diraynaa qayladhaan ah in xukunkaas maxkamaduhu ay soo saareen ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay soo saartay ee daryeelka shaqaalaheeda ah in some power ay allahumma salli calaa maxamed u hoggaansanto waxaanu diraynaa qayladhaan ah in ay jabiso qiimaha korontada oo ay naga dayso 63 unit ee caalamka meel laga isticmaala jirin adduunka Uganda kale ayaa World Bank wuxuu maalgeliyay qandaraas lagu dhisayo solar kadibna shirkadii baa qiimihii qaar ka dhigtay dadkii dhammaan shirkadii qandaraaska la siiyay xafiisyadii agabkeedii dhulka ay soo dhigeen inaguna weli waynu daawanaa dulqaad iyo miyir ayaynu ku wadnaa waxaanu doonaynaa in waxaa la leeyahay minimum cost waa $10 laga dhimo oo laga dhigo $5 $3 $2 inta uu qofku isticmaali karo waxaanu doonaynaa in maalintaan Sunpower isku dhacna leedka iga jarto shirkad kale aan soo gashan karo xor aan noqon karo waxaan leenahay halkii George Floyd uu taagnaa ninkii Mareykanka ay madoobay la dilay ee uu lahaa I can't breathe anigu waxaan leenahay we can't breathe waxaan leenahay dadku ka xoroobaan shirkadda cunaqabadka ah ee cadaalada shida ee wixii adduunka dadka ugu deeqay ku shaqaysanaysa ee Sunpower. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.